waxaanu go'aaminay bulshada Soomaalina u dhawaaqaynaa inaanay qaadan lacag kontona oo doolar Mareykanka ah ama forjiro ha noqoto ama sax ha noqotee ilaa inta muxuu ahaa si wanaagsan loo kala hubsanayo. marka isticmaalka lacagta kontonka dollar ah ee aad joojiseen gebi ahaan waqti intee leeg bay qaadanaysaa? Baananka iyo sariflayaasha iyo xawaalada waxaan kula talinaynaa inay soo iibsadaan mishiinada cusub ee 2021 sanadkan inuu ku jiro oo marka la keeno sheegaya kontonka dollar ka saxa iyo ka forjira kala sheegaya laakiin ka imika yaala 2020 uu ka gudbiya oo dhaafaya sida awoodeed waxaan dad kula talinaynaa inaanay kontonka qaadan nooc kasta ha ilaa inta makiinadaha dalka la keenayo. marka ilaa goormay imanayaan mishiinadaasi oo la keenaya? kulli anigu haddaanu baanka dhexnahay waanu dalbanay baananka waaweyn halanka shaqeeyna way dalbadeen laakiin se ma xadidi karo maalinta iyo waqtiga la keenayo. laakiin dad badan baa haysta lacagaha kontonka dollar ah oo aan weliba voucheriga ahayn oo badan marka in la yidhaahdo yaan la wada isticmaal miyayna dhib ku noqonayn? horta doolarka inagu ma lihin mas-uulna kama nihin haddaanu baanka dhexnahay lacagayaga qalaad laakiinse khatar baa ku jirta marka qofka inuu isugu dee khatartiisa ka fogaado ayuun baanu uga digaynaa. qof kale oo miskiin ahoo lacag moodaya saxna aanu siinin. ilaa imika raadka lacagtan ma haysaan yaa ma cid baa loo hayaa halkayse ka timi? lacagtan raadkeeda ilaa iyo iminka intaanu ognahay waxay naga timi xamar ayay ka timid way ka soo gudubtay Ethiopia soo martay dabeetana Wajaale ayay ka soo gashay Somaliland. sidee markaa idinku ku ogaateen in lacagtu xamar ka timiyo Ethiopia soo martay oo halka ay naga soo gashay? kule dee baadhisna waanu sameynay waraysi baanu sameynay xamar kule siyaasadaa jira imika iyo doorashooyin iyo waxbaa ka socda marka waa lagu soo beegay kule marka doorasho dhacdana waddan waxbaa dee muxuu ahaa lacagyo badan baa soo gala marka sababta ay xagaa ku timi anigu sidaanu warka ku hayno waa siyaasadda imika ka taagan koonfur. marka maxay ku kala duwan yihiin astaamaha labada lacagta saxda ah iyo tan voucheriga ahayd? nambarka serialka ee ku qoran lacagta noorka saxa ah mid walba waxay leedahay serial number gooniya oo iyada u gaara laakiin sida forjeriga been abuurka giddigood waxay ka bilaabmaan nambarka 427 haddii aad ku eegto tooj loogu talagalayna gudaha ayaad arkaysaa security featureski standardka ahaa ee loogu talagalay qaar ka duwan oo ku jira.